tartankii caawa wuxuu ku soo dhammaaday waaxda kaah oo haysata 15 dhibcood iyo waaxda sagal oo haysata 10 dhibcood. tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee waaxaha degmada Gurceel oo taaba gelinaya maamulka degmada Gurceel ee baahinta leedahay warbaahinta Galgaduud ayaa ka furmay degmada. su'aalaha tartankani waxaa soo diyaarshay jaamacadda Imaam Shaafici farciga degmada Gurceel. tartankani ayaa waxaa daafuray gudoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel Dr. Shaafici Jaamac Cabdi asagoo sheegay in ujeedka uu maamulka kaliya tartankan inay tahay isdhexgalka bulshada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta bulshada. tartankani ayaana waxaa lagu furay labada waaxood ee kala sagal iyo kaah iyagoona labadaan waaxood soo bandhigay tartan wanaag. kadib markii uu soo dhamaaday tartanka u dhaxeeyay labada waaxood ee kala sagal iyo kaah ayaa gudoomiyaha guddiga tartanka waaxaha degmada Gurceel Cabdullaahi Gure waxa uu ku dhawaaqay natiijada tartankan iyo soo kala waaxda gudubtay. tartankii caawa ee u dhaxeeyay labada waaxood ee kala sagal iyo kaah ayaan shaaci doonaa. su'aalaha waxaa lagu bilaabay waaxda sagal. su'aashii koowaad ma garan. su'aashii labaad way garteen. su'aashii saddexaad ma garan. su'aashoodii afaraad way garteen. su'aashoodii shanaad waa garteen. su'aashoodii lixaad waa garteen. su'aashoodii toddobaad ma garan. tii sideedaadna waa garteen. sidaas awgeed waaxda sagal waxay ka jawaabeen 5 su'aalood oo ka mid ah 8 su'aalood ee la weydiiyey mana aysan helin wax ka faa'iideysi ah oo ay ka heleen waaxda kale. sidaas awgeed waxay haystaan 10 dhibcood. bal aan eegno dhinaca kale waaxda kaah su'aashii koowaad waa ay garteen. su'aashii labaad ma garan. su'aashii saddexaad way garteen. su'aashii afaraad waa ay garteen. tii shanaad waa garteen. tii lixaad waa garteen. tii toddobaad waa garteen. tii sideedaadna waa garteen. sidaas awgeed waaxda kaah su'aalihii la weydiiyey ee 8 ahay waxay ka jawaabeen 7 ka mid ah. 7 markii lagu dhufto 2 waa 14. waxay heleen halka faa'iideysiga oo ay ka heleen waaxda kale ee sagal. sidaas awgeed waxay haystaan 15. tartankii caawa wuxuu ku soo dhammaaday waaxda kaah oo haysata 15 dhibcood iyo waaxda sagal oo haysata 10 dhibcood.